بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان كفايدة سياشة أرديدا أونلاين كا أو دا سلامية كارهان قولada form 4 libarka iskuulada sare ka soo baxday qoliyaha digriga qaatay ee jaamacadaha halkan waxaan doonayaa inaan iigu soo gudbiyo mowduucii labaad oo ka sheekeynayo arrimaha qaabka shaqada loo raadsado dabcan shaqada markii la raadsado way badan tahay qaababka loo raadsado nin walba xirfadiisa gaarka ah ayuu isticmaalayaa marka qofka loo shaqeeyaha ah ama hay'ad ha noqoto ama dawlad ha noqoto waxaa loo dirsadaa oo isku xiro qofka shaqada raadinaya ka shaqada hayo aalad la yiraahdo CV ama qoraal la yiraahdo arji af Soomaali ahaan lagu magacaabo oo CV la yiraahdo afka qalaad markii la soo gaabiyo CV-ga waa taariikh nololeedka qofka uu leeyahay haddaba CV-ga aad qofka u dirayso internet ahaan aad ugu dirayso ama gacanta ugu dhiibayso waxa qofka CV ahaan ugu soo dhacaya kaliya ma aha waxay noqon karaan dozens dad ah boqolaal kumanaan shaqada qaarkeed oo aad codsanayso ama arjigeeda aad qoranayso waxa dhici karto in boqol qof ay tahay haddayba gobol hoose ay tahay hadday shaqo heer qarana ay tahayna waxa dhici karto 1000 2000 1500 3000 inay soo codsato adiga oo marka tuulo kamid ah ama gobol kamid ah wadanka jooga sidee aad u heli kartaa in lagu yeero haddaba waxaan ku hayaa marka 10 qodob oo aad u isticmaalayso in CV-gaada uu ka sumadnaado ama uu ka calaamad gaar ah lahaado CV-yada kale marka 10 tips to make your CV that gets you the job interview waa macquul CV-gaadu waxaad doonayso waxaa weeye CV sidiisa waa darajada koowaad darajada labaad ee interview-ga ah waxaa la fiirinayaa oo la iskaan gareynayaa shortlist waxa la yiraahdo afka qalaad lagu dhaho ayaa loo sameeyaa CV-yada dadka soo codsada arjiyada dadka marka arjiga keensaday shortlistiga asaga ah loo sameynayo ayaa la doonayaa marka in lagu soo saaro adoo gobol ama tuulo joogto oo internet waraaqad ku soo tuuray haddaba waxaa la doonayaa laguma oga inaad khaa'in tahay inaad tuug tahay inaad cilmi u leedahay inaad lagu soo qoray inay kale laba yaqaano waxa la xukminayo waxaa weeye CV-ga ama arjiga aad soo dirsatay waxa uu ka turjumayo qofka la raadinayo waa qofka aragti oma baahno sawir oma baahno marka waa waraaqad waxa ku qoran haddaba 10 shay ama 10 qodob oo ku fududeynayso in interview-ga lagugu yeero ama darajada labaad lagugu yeero ku gudbinayso ayaa halkan kuugu hayaa marka waxaan isleeyaynaa marka qodobka koowaad waxa uu yahay in lagu cadeeyo number 1 ama lambarka koowaadba waa be clear and structured waxa laga rabaa qofka saddexdan shay inuu ku cadeeyo CV-giisa waa inay ku jirto waa 10 xirfadood oo la isticmaalo tii koowaad weytaan ku jiro laakiin waxa laga rabaa in aad muujisid structure iyo habraacna u samaysid CV-gaada saddexdanba kow fikradaha aad ku qoraysid ideas-ka aad ku qoraysid waa inay ahaadaan idea soo jiidanaysa qofku qodobka labaad waa titleska aad isticmaalaysid muxuu yahay waxaa jiro luqadda ingiriiska marka la wada isticmaalayo erey waxaa jiro yacni soo jiidasho leh qofka ku soo jiidanaya titleka aad isticmaashay iyo garaam ahaan si uu iskugu dhisan yahay waa yacni waa rakabka aad ku sameynaysid sentence-ka ama jumladda titleka magacaad u bixinaysa shayga inuu wax dheer noqonin inuu noqon wax nagmatic la yiraahdo oo isku dhex qasan inuusan noqon sidoo kale paragraph-ka aad isticmaalayso paragraph markii la dhaho no more than 10 lines waa wixii 2 lines xagga ka away ama 1 line baan dhihi karnaa
baaragraafyada waa inay ahaadaan grammatically waa inay dhisan yihiin macna ahaanna waa inay isturjumayaan waa inuusan badnayn marka qodobka waxa weeye waa qodobkii koowaad oo saddexdaa shay wata waa inaad maskaxda ku haysid qodobka labaad baan tegi doonaa isagana oo ah qodob aad iyo aad kan digniin buu bixinaya qodobkan way dhici kartaa in lagu qoro in lagu hagaajiyo laakiin waa inaad taqaano waxa lagu qorayo iyo waxa lagu hagaajinayo waxay ka samaysan yihiin inay sun yihiin inay daawo ku tahay qodobkan waxa weeye waa avoid embellishment marka embellishment waxaa la yidhahdaa inaad wixii dhalaaliso halkan aad kalar u yeesho casaana halkan ku kaloo huruud ah halkan ku kaloo cadiina halkan ku kalo oo maaragtay doogdoog ah yacni waa wax lagu qartaa meesha marka meel aroos maaha meel xafladna maaha waxaa laga rabaa saddexdan mid ka mid ah inaad iska ilaaliso waa avoid ka fogow waxa weeye word baad ku qoranaysaa waxaa la isticmaalaa wax la yidhahda italic iyo wax la yidhahda bold nidaamyadana waan tegi doonaa cashirada dambe ay ku jiraan marka waxaa weeye font or colorska midabyada iyo fontiga aad isticmaalayso qaar waaweyn qaar kaloo yaryar eray dhexda ku jiro dheer mid kaloo bold laga dhigay mid la caseeyey mid magaranaysa huruud laga dhigay mid doog laga dhigay tan waxan yacni qaabdaray kuu keenaysaa qodobka labaad waxaa weeye keep it simple in wixii aad fududayso oo aad ka dhigto very simple inaad ka dhigtaa lagaa doonaya maaha in wixii ka dhig haddaad adiga isku adkayso cv-ga aad adkayso oo aadan fududayn oo aad buuxiso aadna waa hoos baa lagu gelin so waxaa lagaa rabaa natiijadaadu inay ahaato wax qofkan akhrin doono isha markuu saa ugu dhufta u fahmo fududee ha isku rarin ha buuxin baaragaraaf kaloo buuxan meel kasoo koobiya halkan keen kaa saaxiibkaa kasoo qaad kan isku keenkeen haddii wixii aad buuxiso waxay noqonayaan waxaan xiiso lahayn marka qodobka saddexaad oo qodobkan labaad uu nooga digay waxaa weeye clear and to the point ha ka bixin waxaa la rabaa waxaad ka sheekeynaysay project manager inaa meel ka ahayd waxaad u booday qodob kale oon quseynin qodobkii marka waxaa la rabaa bointigii aad qaadatay in bointigii aad ku saxdo oo aad bointiga keliya aad isticmaasho oo ku ekaato lama doonayo in yacni galbeed iyo koonfur aad macnaha ka sheekayso oo wixii ay noqdaan wax yacni marna aad geel u haysi marna allo u haysi waxaa la rabaa inay ahaadaan wax ah clear to the point marka qaybta waa qaybtii labaad waxaan u gudbaynaa qayb kaloo ayadana aad muhiim u ah waxa weeye qaybtan waxaa la yidhahdaa be concise waxaa la rabaa qofku in uu wixii gaabiyo soo gaabiyo ama soo arooriyo yaysan kugu badan ha noqoto mid la soo gaabiyey waxaa weeye horta inteebaa looga baahan yahay cv-ga waxaan ooga hadli doonaa casharada dambe cv maxaa la yidhahdaa resume maxaa la yidhahdaa maxay ku kala duwan yihiin marka labada ayada waa inaan fahanaa marka cv-gaadu yuusan kaa noqon mid yacni ka badan 2 page hal baa ka dhigi kartaa qofkii khibradiisay ku xiran tahay laakiin inta u dhaxayso adiga hadda casharada dadka ugu talagalnay waxaa weeye waa qofkii khibradiisu aan ka badnayn 2 page yacni secondary uu kasoo baxay baa niri waa shaqadoon jaamacad buu hadda soo dhamay waa fresh cv wey xitaa adigoo fresh ahayn oo ilaa 3 shaqaad soo qabatayba ka dhig 6 waxaad leedahay ilaa 3 sano baaba shaqo leedahay oo 3 position 3 hay'adood kala ah kama badnaan karaan marka 2 page laftirkood marka waxaa laga rabaa in aad cv-gaadu ku aruuriso iskugu keento ku soo gaabiso 1 ilaa 2 page ugu badnaan oo A4 size ah markii la eegay maxaa la doonayaa markan ayaga laftirkooda aad soo koobto courseska haddii 48 koorso aad ku soo qaadatay jaamacadaadii degree 48 koorso meeshan dhigaya wax macquul ah kuma noqonayso
okay waxaa soo qaadatay intaasoo aan dhahnaba informal training baaba soo qaadatayba waxaad ka soo qaadanaysaa ilaa 3 2 1 qusayso shaqada aad CV-gan u dirayso maaha waxyaalahan kale kuma qusayso haddaad buuxiso lama fahmayo meel baa la dhigi marka waxaa kaloo iyada la rabaa in aad meesha ku muujiso degree ahaan majorkaadu wuxuu ahaa hadduu booskan quseeyo haddii training informal training aad soo qaadatay oo tababarka dadbana ayadana waad ku daray titlekaad muujin waa intay qusayso shaqadan waxaana ogaataa CV walba wuxuu leeyahay yacni shaqo walba waxay leedahay CV cusub baa leedahay iyo application cusub oo arji cusub ah title of your dissertation marka waxaa kaloo ayadana meesha aad ku qori kartaa ama daabac oo ha ahaada mid publish garaysa ha noqdo ama iyo noqonin buuggii jaamacadda thesis-ka aan u naqaano ama dissertation aan u naqaano kaliya ma dhahin kii jaamacadda xitaa haddii aad novella kale waxaa qorteen laftirkeeda 1 or 2 waad ku dari kartaa oo aad qortay qodobka saddexaad oo qodobkan hoos imaanaya saddexaad waa shaqadii aad qabatay oo gaaban not inaad soo qaadato shaqadii ayadoo qabanaysa job description-keedii oo dhan intaad soo qaadato hadda CV-ga dhigto keligeed baaba 2 page ah marka lama doonayo waxaa laga rabaa 1 or 2 main duties-ka qabanaysay oo muujinaysa laga doonayo qodobka afraad waxa weeye qodob aad iyo aad noogu muhiim ah haddii CV-gaada xitaa loo bogo ayada laftirkeeda ayaan daraa in lagaa waayo qodobka waxa weeye make sure you can easily contact it waxaa la rabaa qofku inuu ahaado qof yacni si marka hadda la doono markaas soo dustigba la soo geli la heli karo xaggee laga helaya waxa weeye waa in aad aaladaha maanta la joogo aad naftirkeeda samaysato waxaa laga rabaa CV-gaadu in page-ka ugu horeeyo aad ku qortid waxaad ku qorayso waa labadan qodob qodobkan koowaad qodobkan labaad baan ogala jeedaa emailkaada waa inaad ku qorto on top of your CV baad ku qoraysaa emailkaadii baad qori skype-kaadii baad ku qoraysaa yacni waxaa la eegayaa waxyaalo badan qofka horta ma isticmaala aaladaha haddii skype maqalay muuqaal looga baah ma la heli karaa waa skype ma aha whatsapp baan leeyahay loogama jeedo facebook baan leeyahay waxa shaqada laguma wada xiriiro shaqada waxa lagu wada xiriiro oo shirarka lagu qabto oo interview-yada lagu qaado waraysiga waa skype baa la yidhahdaa tan labaadoo lagu xiriiro arjiga la iskugu diro iyo haddii lagu baahan yahay in stageka labaad aad u gudubtay waa email waa ina email leeda so dad badan baa arkay oo dhahaya emailkaada iiga dir so emailkayga haddii looga diro oo qof saaxiibka emailkiisa isticmaasho lama heli karo sidoo kale waxaa jirta aalad aad u muhiim ah qofku xogtiisa oo dhan uu gashan karo oo la doonay in waraaqadiisii ama application ha noqoto ama CV-giisii uu ku qoraa si haddii looga baahdo faahfaahin dheeraada looga bogan karo internet ahaan qof media ku xiran waa inuu ahaado waa LinkedIn-ka waxa loo yaqaan waa la samaystaa haddaadan kaa lahayn shaqo ujeed ma tihid bay ka dhigan tahay soo saddexdaa waa rukumada koowaad oo la doonaya in qofka laga helo contactigiisu maaha inaad qorto emailkaadii iyo numberkaadii keliya tan saddexaad waxaa weeye waa imaan kartaa waana tilaabo saddexaad bay imaan kartaa waa phone numberka qofka uu leeyahay weeyaan lambarka taleefankaada waa inaad ku qortid qodobkan marka shanaad baan u gudbaynaa waxaa la doonayaa CV-gaada markaa qorto in saddexdan shay aad ka ilaalisaa oo qodobkan shanaad wuxuu ku leeyahay remove all unnecessary information lama doonayo CV walaalkaa uu leeyahay ama qof kale uu leeyahay ama internet ah kala soo baxday inaad magaca un ka bedesho oo hadduu badda uu ka shaqayn jiray aad baddaan ka shaqayn jiray kan uu qaban jiray halkaasaan aan ku nasan jiray kan baan samayn jiray kan kaa kuma caawinayso marka waxaa laga rabaa shaqada la doonayo oo degan waxa loo doonayo waa inaad yacni laftirkeeda aad qaban kartid waxaa lagu yidhi avoid qodobka koowaad oo qodobka shanaada avoid putting curriculum vitae at the top waxyaalahan soo socdo meesha ugu sarreysa ee curriculum vitae-ka laguma qori karo waxaad arkaysaa CV lagu soo qoray title-kiisa curriculum vitae lama ogolo ha ku qorin waaba la og yahay arjigan qofku uu yahay ha ku qorin lama ogolo
address baa ku qoranaysaa meesha haddaad u baahan tahay qofka magaciisii taleefanadiisii skype waxaa sheegaya lagu qoraa laakiin curriculum vitae ha ku qori taa ayada lama ogolo waxaa kaloo jiro qofka cv-ga wuxuu qori name buu qori markaas wuxuu qorayaa magaciisu ku hor qori meeshan jaamacad laisma diiwaangelinayo hotelna laiskama diiwaangelinayo loogama baahno waa waxaan lagu wada xiriirayo waa aaladan marka internetka lagu wada xiriirayo meeshan lagaa diidayo qodobkaa koowaad oo hadda lagu sheegay curriculum vitae ku qorin cunto ayaaba lagu qoraa magaca qofka laakiin ha qorin name hebel ha dhihin addresskayga waa meel heblaaye ha dhihin maxaa yeelay addresska iyo waxanba waxaad ku qoran kartaa xaggan kore meesha curriculum vitae ku qortid ayaaba lagu qoraa marka qaabkaas horta ayadana loo sameeyaa ka fogo meesha ayada qodobka 6 baan u gudbaynaa put the emphasis on your experience waxaa la rabaa qofku in uu sameeyo inuu emphasize gareeyo oo uu aad iyo aad awoodda u saaro qodobadan soo socdo experiencegiisana la xiriiro wixii khibrada u leedahay your experience is what the recruiters more eager above all dadkan wax shaqaaleynayo CV-yadan eegayo screening wax la dhahaa la marsiyaa CV-yaasha screeningka marka la marsiinayo CV-ga aad soo dalbato oo uu soo gaaro xarunta shaqada waxa la eegayo waxa weeye magac ka sokow iyo hebel ka sokow qofkan khibradiisu horta maxay tahay baahidoodu ayagu shaqadan qof khibrad u leeyahay shaqadan qof qaban karo murqalo xoog loo itaal loo way dambaysaa waxa يساعد قبل لهد لكن CV وإن لا أرى شقاً أيها أباهين عد قبل كرتايا لو قلت هذا وحا أنك شكينا نقدر أيها مهمة دو وحيسوها صفر لسانيسا وإكسبيرينسيك خبرة الليلة وإن أد وحوجيسا مدى كلا يسوال والكودري no professional هدي آتاي وليبا قف عن professional با لهين با هداتاي وحسمانيسا مركا student job باجرة محاقة بين جرتين marka arday ahayd ma teach and learning ba ahayd iska baranaysiyo ma lagu barayo ma iska sixseexanaysiyo no waa in wax aad qabanaysi ay jirtaa waxyaalaha hadii training meel ka soo qabatay hadaad failure meel u aaday hadaad data collection meel yar ka soo sameysay hadaad case work ay yara ahayd waxooga maalmo 2 days 3 days 20 days 15 days 5 days waxa soo dhan waxa waxay galayaan qofku marka uu yahay no professional waxa kamid ah qofku haduusan lahayn wuxuu ku shaqaystaba certificate baad u lahayn waa macquul haduu qofku waxba soo barin waa no professional ba kamid waxa iyadana la mid ah qodobkan saddexaad ee qodobka lixaad hoos imaanayo no experience wax la dhaho no experience marka ayada waxa loo isticmaalayaa khibradba qofka ma leh laakiin wuxuu sameyn karaa hadaan khibrad lahayn waa degree wadato gurigi miyaad ku noqon oo aniga khibrad ma leeyahay waxaad baan dhami khibrad waa leedahay khibrada aad leedahay maxaa ka bilaabaysa academic ahaan baad u leedahay cilmi waad soo baratay laakiin kumaada shaqayn waa lagu soo train gareeyay laakiin kumaada shaqayn experience wuxuu hoos galaa qofku khibrada uu leeyahay oo tan waxay u noqon markii education waxan skills baad u leeyahay xirfada aad ku shaqeyn leed waa taqaanaa laakiin maadan ku soo shaqeyn bay ka dhiganta qodobka 7 baan u gudubnay qodobkan 7 marka wuxuu ku sheegayaa waa qodob aad iyo aad muhiim u ah oo qofku markuu shaqada eego ayaa waxa lagu yiri only mention relevant training waxa way shaqadan degan oo rabto inaad CV-ga u dirsato waxa laga doonayaa inaad kaliya ku xusto trainiyada la halmaalo oo aad soo qaadatay la halmaalo marka waxa weeye la midka ah ama u dhigmo oo aad soo qaadatay مثلا hal mid koowaad boqol koowaad aragno education ama specialization kaadi مثلا hada jaamacada aad tagtay specialization kaada waxa laga yaabaa inuu ahaa ina BA wadataba laakiin specialization kaada wuxuu accounting buu noqon karaa marketing buu noqon karaa HR buu noqon karaa and more
qodobkan kale waxaa weeye dadkan loo shaqeeyaha ama wax shaqaalaysiinayo won't be interested primary secondary school stars waxaa ogtihiin cv-yada qaarkood waxyaalaha cajiibka ah waxaa weeye qofku wuxuu qori primary waxaan ka baxay hebel iyo hebel intaa sano secondary waxaan ka baxay sanadkaa iyo sanadkaa taa kuma qiimeynayso maxaa yeelay halkan waxaa la doonayaa specialization baa lagaa rabaa ama waxaa lagaa rabaa experience qof professional baa loo doonayaa so secondary inaad soo dhammaysay iyo inii kale meelo ay ku xiran tahay baa jira laakiin shaqooyinka cv-ga iyo ama hay-adaha iyo hadda aan ka sheekeynayn loogama baahno primary iyo secondary wax la yidhahdo primary iyo secondary loogama baahno qofku waxa la eegaya waxaa weeye specialization uu qaatay markii la joogay jaamacadda maxay ahayd degree baa ugu yar phd baa ugu sarreysa waxa kaloo soo asmaanaya waxaa weeye waa international certificates uu qofka sameeya baa ka mid qodobka saddexaad mention any relevant training haddii trainyo badan baad qaadatayba kasoo qaad 10 training baad qaadatay 10kaa training inaad cv-ga ku xusto ma aha labo ama halka shaqadan aad codsanayso u dhow unbaa lagaa doonayaa in aad macnaha aad qortaa oo meesha ku xustaa qodobka sideedaad waxaa lagaa doonayaa work in chronological order waxaa la rabaa cv-gaadu ma aha intaad qortid profilekaadii koowaad intaad qortid ama magacyadaadii contact addresskaadii waxa markaa qortid haddana haddaad qortay ka waran interestigaadii haddana aad education qorto haddana work experience yacni lama doonayna wixii disorder uu ka ahaado waxaa la rabaa hanaan waxaa jiro la maro oo format ah waa casharada soo socdaan ooga hadli doonaa qaababka la iskugu xiijiyo yacni iskuulka waxaa jiri jiray imtixaanada marka la galo waxaa jiri jiray waxa la yidhaha alphabetical order carabigana waxaa lagu dhahaa raqam juluus marka ma arkaysid maxamed oo kasoo horeyn karo cabdi markaad jaamacadaha macnaha imtixaanaadka la gelayo kale ama yacni national examinationka oo kale la gelayay nidaamka lagu galo cv-gana nidaamkaasoo kale ma alphabetical order ma ahe waa chronological order wey marka isaga waa vice versa qaabka ay u kala horeeyaan ay u kala mudan yihiin wey marka ayadana waan arki doonaa waan ka faa'iidaysan doonaa ilaahay hadduu yidhi qodobka marka ii xiga ee kan sideedaad qodobkiisa saddexaad waxaa weeye accordingly always put it first waxaa lagaa rabaa sida ay u kala muhiimsan yihiin u kala horreysiin mar walbe ayaa loogala jeedaa qodobka sagaalaad baan u dhaadhaa kan waa be precise waxaa la doonayaa qofku in laftirkeedu uu ku magacaabo oo weliba uu ku adkeeyo qodobadan mid don't forget to mention other mandatory skills lama doonayo marka khibrado kalaa jira marka laga baxa trainyadan iyo nidaamyadan iyo shaqadaasi degreega looga baahan yahay iyo qofka specializationku wato loo baahan yahay marka laga tago intaa la xuso waxaa jiro laba shay oo kale oo isla codsadaha qofka yacni shaqada lasoo advertise gareeyay waxaa lagu caddeeyaa waxa la yidhaahdo yani requirementiga la sheegayo marka kuwan marka waa mandatory qofka luuqadda lagu shaqeynayo maalan hadday hay-addu ku codsato ay tahay hay-ad yani duty languagekeedu ama common languagekeedu uu yahay carabiga waa inaad taqaanaa sidoo kale haddii ay tahay hay-ad kale oo luuqadda ay ku shaqeynayso laakiin languageka uu yahay english waa ina englishka taqaanaa not inaad qorto keliya english ma waa ina englishkii aa sheegtaa darajadee ka tahay englishkii readingki waa noocee qaabkee darajadee tahay readingkii waan sheegay yani speakingkii ama communicationka waxaa la yidhahdo xagee ka taagan tahay waa in aad sheegtaa qaabkaa u sheegtaa writingkii iyo readingkii iyo speakingkii waa in aad sheegtaa darajada aad ka tahay 3 darajay leedahay haddii un-to kale loo galo waxay leedahay wax c1 iyo c2 wax noocaas la dhaha jira ama b nidaamkaas oo kale nidaam kale asagana jira oo la isticmaalo caam ah
basic baa jira asagoo la isticmaalo مثلا waxaad haysaa reading oo kale waxaan ka ahay basic laguma baahna marka fluent baa jira qodobkan saddexaad marka waxaa weeye waa in qofka uu ku cadeeyaa level of ability-ga waa qodobka hadda labaad ayuu hoos tegayaa sharaxaadiisa waa sababta and level of ability aanu yiri marka computer baa sheegatay computerka level of ability-gaadu muxuu yahay waa inaad sheegtaa maxaa ku qaban kartaa computerka ma email ba ma facebook ba waa waxaas no waa aaladaha lagu shaqeeya xafiiska aalada ka mid ah waa inaad garanayso qodobkii noogu dambeeyay ayaan hadda ku wajahanahay qodobkan marka hadda waxaa laga rabaa qofku CV-gu waa qodobkiisii tobanaad weeye personalize your CV waxaa laga rabaa qofku CV-giisu in uu personalize kareeyo يعني hanaan uu u sheego ama hanaan muwaadareed uu sameeyo ta kale waxaa la doonayaa CV-gaadu inuusan copy ka noqon oo aad qof kale u copyeen qofka khibradda ku caawi laakiin CV-gaada siin waxa CV-gu wuxuu ka mathalaya nin baceesanti ceel keentay weeye nin baceesanti ceel keentay marka wala jeedo waxa weeye ceelka marka la iskugu yimaado reebaadiyo reerba meel bay ka soo arooraan marka reerba meel ka soo arooraan ceelka la iskugu yimaado waxa nin arigiisa markii saa loo eego waa ari aan macnaha gashin lahayn ama aan dhareegsanayn dhogortiisa qumanayn midna waa arigiisa gashin buu leeyahay maasha Allah dhogor fiican buu leeyahay meel wanaagsan buu daajiyay soo la iskuma sheega marka kana waa sidoo kale waa tricks lama kala koobiyay haddii CV-gaada aad koobiyay mid kale ka koobiyay la diro meesha la iskugu tago soo challenge baa imaan marka laakiin khibradda waa la isdhaafsadaa systemize according to the job you are targeting waxaa la rabaa marka CV-gaadu inaad u fariisiso hanaanka shaqada aad codsanayso ma aha shaqadii 2018 aad wax ku codsanaysay 19 inaad ku codsato haddana 2020 inaad diyaar u tahay ma la rabo laba shaqo oo isku xigta ayuu CV-gaadu kala nooc yahay maxaa yeelay hay'adahan ayaaba kala noocaba waa inaad ogsoon tahay qodobka saddexaad ee tobanaad ee kan noogu dambeeya most of experience and training may be more relevant for one job than another waa lagu kala duwan yahay waxaa laga yaabaa midba midka kale inuu ka duwan yahay marka waxaa samayn doona ilaahay hadduu yidhaahdo waa taxane waa qodobka waxa weeye waa cashirkii labaad wuu noo socon doonaa ilaahay hadduu yidhaahdo waxaan rajeynayaa in ay noo ahaato mid laga faa'iidaysto idina wixii comment waad ka dhiibi kartaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu